warba adinkaas ku kaydiraysiin habar gidire cid ugu kaydistama barakoolka fiidiyowga laga soo hor muuqanayo kama muuqdaba waxa la iska soo galaa iyadoo la dhidida saas dhididku uga difqaayo subag ka difqaayo ayagana fiixayaan dhaga weyne iyo ninka la yiraahdo abwaangaraad muuqaalkayga waxaan ku soo qaadan doonaa public figurada Abgaal Cismaan iyo kuwa habar gidir yaa tabin wanaagsan salaamullaahi calaykum daawadayaal halkani waa Samawada Media si lamida muuqaalka farxadda media ayaa si toos ah u heli kartaan aan ku bilaabay shalay waxaan ka hadlay magaalada Muqdisho qaybta ay ka degan tahay habar gidir iyo qaybta Abgaal ka degan yihiin yaa qurux badan yaa amaan yaa hormar ka muuqda runtii halkaasi waxaan moodaa dad badan oo ka tirsan beesha Abgaal ama kamid ahba inay ka caroodeen maantana muuqaalku wuxuu diiradda saarayaa public figurada Abgaal Cismaan iyo kuwa habar gidir kuweeba tabin wanaagsan ku bilaabay marka ugu horeysa waxaan soo qaadan doonaa laba tabiyaal oo beesha Abgaal oo caadi meeshan live ku sheekeysano in aqalkooda cambuulo ku cunayeen camal waaya warba adinkaas ku kaydiraysiin habar gidire cid ugu kaydistama adinka way waxaas dhan وأوري مدو كلما معمولة مرتيني ميت كي قاعد وير مقطع. ها ما يعدان رنت للو شيء مفهوم ممكن فقان إن لكن وإنه أجهدان إنه يهين مرتئب لإنه نقطان. مية فيري وهو رواد ما ذا بعدين نعيان والله سدح جبال أنا هو شيء جايبه. فيري عدان أنا لبض ضفار أو العق السيان أو نوسو جستي هلين أنا لبض ضفار أو يجا هو بحلسي مهلين نميا. حاجو فلنا أنا كيف مكان لا صار مكان تبي منه أيها لكن إنه قف العكسيان ويلي قريت تسوق كريسة جرا هذا ما يكون كوتا أبقى أفرتو مرة لبضع سنين لا هني دافيو waayahay waxaad la soo daawateen dhaga weyne iyo milyan rooble oo habaaraya Cabdullaahi Balwaan iyo Cabdiqaadir Boos habaarkooduna waa habaarka ugu dambeeyo ay isticmaalaan beesha Abgaal waxay yiraahdeen Abgaalow afarta soo mara afartu waa afar faataxo inuu Ilaahay idin dhaafsiyo waaya meeshaasi tabiyaasha Abgaal oo dhaxdooda afarta isku mara ishabaarayaan ku heynaa markaan ka hadlayo tabiye laba ayaa loo kala saaraa Cabdullaahi Balwaan Cabdiqaadir Boos Cali Aadan Muumin iyo tabiyaal badan oo beesha Abgaal iyo beesha habar gidir ka soo jeeda waa saxafiyiin hore kuwaasi kuma jiraan beeca laakiin waxa maanta ka hadlayaa abwaangaraad dhaga weyne wasiirka cadaaladda cadaawe iyo wixii la halmaalo kuwaasi ma ahan saxafiyiin laakiin waa qaaqlayaal maxay isku kala duwan yihiin ayaan waxaan rabaa muuqaalka inaan ku qaada dhigo haddii aan ku horeeyo kuwa Abgaal Cismaan abwaangaraad dhaga weyne cadaawe iyo wixii la halmaalaba waxa ay ku hadlaan lahjad loo kala ah hadalkoodu ma dhaafo kaaraan iyo suubacaad markaan saan idin leeyahay waxa la rabaa tabintaadu inay tahay mid la bilaaw dhaxdhaxaad iyo dhameystir waxa fahmi karo qofka saxafiga hadalkayga waad aragtaan hadan idinka soo qabto abwaangaraad warkiisa markuu yahay 4 daqiiqo 3 daqiiqo oo kamid ah waxa uu yahay intro waxa lahaa hordhaca hadalka ayaa 3 daqiiqo maanta waxaan idin wadaa laba igaar oo intuu kala guday iyo halka soo kuday qodobkaasna gadaal oo dhiga doona qandiga ku ridda hey beejkayga cala soo soo fiirsha wala xayd ku dhaafa maqaayad kaaran ku taalo cambuulo iyo muufo lagu gado xal umaleysa inuu ku dhex sheekeena umaleysa in camera u daarantaa talabaad barakoolka fiidiyowga laga soo hor muuqanayo kama muuqdaba waxa la iska soo galaa iyadoo la dhidida saas dhididku uga difqaayo subag ka difqaayo ayagana fiixayaan dhaga weyne iyo ninka la yiraahdo abwaangaraad waxay aniga cunaan ma aqaani ninkii subag la hayo habar gidir oo isheeg oo tooxow ayay bareejo ka cariiriyeen labadooda dhinac ka cariiri ku dil rabaa cariiri tooxow habar gidir waa dayrisa waxay dhaheen ninkan baq dharaq ku hayo aniga wuxuu noo yahay male Abgaal laakiin ayagu waa la fiicayeen oo ma dayrin sidii tooxow subag leh ayay u dhididayaan abwaangaraad iyo dhaga weyne saasa dhididku uga difqaa ay maleysa black and white dadka hore soo fadhiisanayaan wasiirka cadaaladda kale ma ahan saxafi laakiin hadalkiisu wuxuu leeyahay bilow dhadhaxaad iyo dhameystir iyo ujeedo xil guntade hadalkiisu wuxuu leeyahay soo jiidasho dhadhaxaad iyo dhameystir marka halkaasi waxaan ku kala saaray public figurada kuwa aan saxafiyiinta hore ahayn ee habar gidir Abgaal
waxa hormud ah kuwa habargidir marka waxaan leeyahay abwaangaraad dhagaweyne cadaawe iyo wixii la halmaalo oo u hadlo beesha abgaal lahjada iska soo hagaajiya ama adika ku hayo waqtigayda ku dhammaado waxaa la hadashiin kaaraan iyo xaafadahayda maahane lama hadashiin soomaalida kale ee caalamka ku nool soomaaliga jooga Garowe kan jooga Hargeysa kan jooga Jigjiga Kismaayo iyo qaybo kamid ah magaalada Muqdisho qodobada aad ku soo qaadatay barnaamijkeeda waxba kama fahmaan marka waxaan idin leeyahay caalamka la hadla lahjadiinana gooni idin ahaato subax wanaagsan saaxiibayaal halkan waa Samawada Media anigoo Suudiyana waxaan ku qaadaa dhigayay maxay ku kala dugan yihiin babalka fikrada abgaal iyo kuwa habargidir intaan kulmi doono barnaamij caynkan oo kale ah sidaas iyo amaan Allah iyo barnaamijka oo la share gareeyo noo balana